بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كسو دواada walaalayaal isxasuusintan iyo tala muhiimtan laysasiintan laysasiinano maanta uu ku saabsan yahay ama casharkeenan uu ku saabsan yahay muuqaalka kan faasiliin. mar haddaad midabkiisa aragtay muuqiisa aragtay magaciisa waad xasuusatay, haddaad isticmaashidna faa'iidooyinkiisa waad garanaysaa, waad xasuustaa qaar ka mid ah. geedka kan waxaa la yiraahdaa faasiliin. faa'iidooyinkiisa mucjisada ah ayaan rabaa halka kan inaan kula wadaago si baryaraan u xasuusano isticmaalkiisa yarana u faa'iideysano. ilaahay hadduu ogolaado walaalaha halka kan nagala socda iyo familkeenan khayrka badan ee channelkani ku xiran aynu ugu talagalnay waxa weeye waxyaalaha dabiiciga ah ee nolosheena wax u taraya inaynu hadba muuqaal idinkala wadaagno si aan uga faa'iideysano idaylkeen insha Allah. hadda casharkani waxaan uga hadlaynaa kaliya faasiliin iyo faa'iidada uu leeyahay jirkeena iyo timaheena iyo adeegsigiisa. waad ogaan doontaa arrimaha uu leeyahay ee dabiiciga ah ee maskaxda ka baxsan. faasiliinku wuxuu ilaaliyaa qoyaanka jirkaadu hadduu qallalan yahay faasiliinka ku daliig, gaar ahaan suxullada halkaas dadka qaar ee ka jacdadmaan rugbadan ama halka kan ee lowyaha jilbaha dadka qaar ay noqdaan intay hilib ka dulfoolo si qallafsan oo kale u ekaadaan, ku daliig way jilcayaan. sidoo kale cirbaha adag ama qalaylka ku daliig saad u marinayso saa ugu daliigtid ugu dhooboqdid u marisid baa la xiro ama sigisaan la xiro la seexo jilcaya. jirkaada waa jilcaya, meelaha qalaylka iyo adayga ka darantay qallafsanaantana waa jilcinaya. ka faa'iideysa marka faasiliin. jirkaada haddaad ku masaajaysid masaaj ahaan uga dhigtid jacdadka waa kala dagaalamaya. sidoo kale da-du inay qofka ka muuqato uusan gaarinba daryeel la-aanta iyo jirka qaleylkiisa arrinta iyadoo ay keenayso. isticmaal waqtiyada qaboobaha. dugsi ka raadi qabowgu markuu jiro iyo barafyada wadamadaas oo kale ka dhacaan qabowga uu jiro isku daliig dugsi buu ku siinayaa, energy ayuu jirka siinayaa insha Allah. luqunta kale iyo meelaha laabta ee jacdadka qofka uga dhacaan ku daliig uu jilcinaya, jacdadkana waa kala dagaalamaya. sidoo kale cidiyaha ayuu faasiliinku wuxuu siinayaa qurux iyo dhaldhalaal iyo nimco hadda ka maqan. sidaa darteed waa mid u faa'iido badan cidiyaha iyo timaha faa'iido leeyahay. timo quruxsan oo dhalaalaya haddaad rabtid oo xariira isticmaal faasiliinka. faasiliinku waa daawadaada, jirkaada daawadiisa wey. soco haddaba soo iibso, waa raqiis meel kastana waa laga helayaa. dad gooni oo ma xirna, waa wax suuqaasi caan ku baxay oo sidaasi uudayaal lacag badan oo laga siin mayo. raqiis shilimaan naftaada kala baqayli. dumarka waxyaalaha ka anfacaya waxaa ka mid ah meelaha dhagaha ay gashadaan ee dulduleela oo in hadday badsatay hadday yaraysataba rubama laga yaabaa dahabka iyo wixii u surnaa inay xanuujinayaan. yara sidaa u mari, duleelku waa furmayaa waana jilcaya, birtuna qaban mayso. sidoo kale faraantiga hadduu dhib kugu yahay siibitaan iyo gelitaan mari dabcayaa meeshaasi wuxuu noqonayaa mid aqbala. faraantigu meesha tan wuxuu faasiliinku la dagaalamaa bushuba jeexjeexa qofka bushumu dildilaacaan ha isticmaala halkaas. waana sifeeyaha wejiga. habeenkii markaad seexanaysid wax yaroo khafiif haddaad marsatid, subaxii markaad soo toostina saabuun uga dhaqdid, waa sifeeye. dufanku ka sifeynayaa, soo jiidasho quruxsanna wuu siinayaa. isticmaalka haka badbadin, ha dhaafsin xuduudiisa, wax yaroo khafiif saa u marso. markaasi waxaa samayn kartaa, waxaa ku dari kartaa qaado oo faasiliinka ah ayaa caano yar ku dhibcinaysaa, caanaha caadiga ee la cabo. kadibna wejigaa sidaa u marsinaysaa, dhowr daqiiqaad u daynaysaa, waana ka masaxaysaa. waa marka wejigaa rabtay si fiican inuu kuugu nuuro
si wanaagsan oo yaro fudud u mari. Hadaad faasaliin qaada ah laba dhibcood oo caanaha ku dhibcisid ama wax yar ku dartid, saa wejiga u mari si yaro fudud, daqiiqadana u kaadi, kadibna ka mayr ama ka masax. Faasaliinku wuxuu la dagaalamaa soo buurnaanta halkan. dad baa halkaasi kor usoo guusantayo indhaha hoostooda ay soo buurtaan, hadday habeenkii sidaa ugu masaajtayaan oo ku seexdaan, faasaliinku waa la dagaalamayaa cilada noocaasa. faasaliinku waa mid ku sugaya jirkaada, ku sugaya catarka ama baraafuunka. baryahan dambe waxaan ka cabanaa ama dadkeena iyo dhalinyarteenu ka cabtaan baraafuunku hal mar hadday isku buufiyaan inuu isla markiiba ka baaba'ayo. laakiin jirkaada haddaad yaro saa intaad u maraysid meeshaa rabtid faasaliinka, kadibna baraafuunka saa ugu buufisid, mudduu kasii carfaya, jirka kale usii faafinaya iyo dharka. waana faa-iido aada u muhiima dadku inta badan aysan aqoon. sidoo kale xirnimaha ama timaha indhaha ee ilaaliya ee xikmadda ilaahay keensatay halkaa in laga soo saaro. qofka doonaya inay u dheerdheeraadaan, u quruxsanaadaan, faasaliinka ha isticmaalo. waxaynu raadinaa meelo badan oo aynu ku sifayno si ay u dheerdheeraadaan baalaha indhaha, laakiin faasaliinku waa mid si fudud kugu soo kobcinaya arrintaasi. wax yaroo khafiifa haddaad intaadan seexan saa u marisatid, ku seexatid, waxay noqonayaan baalaha ama xirnimaha indhaha ay kordhaan, kuwa kordho hore u socda, dheerdheeraada. waana ku farxaysaa mucjisada iyo faa-iidada iyo natiijada ka dhalatay isticmaalkaada kadib. faasaliinku wuxuu kaluu qofka ku sugaa, haweeneyda gaar ahaan markay ay marsanayso make-upka, hadday yaro ku dhex darto faasaliinkii jirkana wuu raacaya, lamana dareemayo make-upkan inay quruxsan tahayna waa la arkaya. sidoo kale kasuulinta make-upka markaa rabti inaa iska dhaqdi meeluu kaa gaaray make-up, yaro saa u mayr, hal mar buu mayrmaya make-upka meeshaasi kaaga dhacay. suurtagal bay ku tahay dhagayaro la tumay oo yaraa intaad ku dartid faasaliinka inaad bushimaha barsatid, si aad u heshid bushimo isku dheelitiran oo quruxsan oo macaan oo maasha allah ah. dadka qaar oo sida qaar dumarka oo kale ay timuhu fooda ka qalalaan, sida qaar wayba jaraanba caku iyo timahan dheer bay leeyihiin, macnaha timaha foodooda qalalaya, angegaya. adoo maqas u aadan oo aan iska jarin yara sidaasi u maray faasaliinka, waad arkaysaa inay dabcaan oo ay sii daysmaan, horeyna u socdaan, quruxna ay kugu noqonayaan sida xariirtii. muddo 15 daqiiqa ilaa 20 daqiiqa intay marsanaadaan meeshaas, ama aad marisid faasaliinka kadib ka dhaq. tusaale haddaad rabtid timahaada inaad marisid waxyaalo midab, color, cilaan oo kale iyo wixii la midka ah, haddaad rabtid in jirka kale uusan usoo gudbin meesha timuhu kasoo dhalanaya, saa ugu wareeji faasaliinka kadibna marso. waxaa timahaad marisay jirka kale usoo gudbin mayaan. waa faa-iidada uu leeyahay faasaliinka oo dad badan ay jahli uga sugan yihiin. cidiyaha haragga geesaha ka ah, dadka qaar halkaa waa dildilaacaan, wayna jeexmaan cidida salkeeda hoose haragga meesha kasoo gasho, qalayl ay qalashay darteed. haddaad rabtid marka inay kuu qoydo, ciladaasna kaa baxdo, faasaliinka sidaa u mari. faasaliinku waa mid leh faa-iidooyin kala duwan oo mucjisooyin ah, oo jirkeena caafimaad qeyb kastaba u leh faa-iido gooni ah. sidaa darteed adeegsigiisa ha hilmaamin. qaabkaad u adeegsatid iyo qaabka uga faa-iideenna waa rabnaa ama waa jecelnahay. qeybta hoose ee commentiga inaad nagula wadaagtid, channelkeenana daris nagula noqoto, subscribe tiraadid, casharkaana like tiraadid, sida share garaysid. waayo agteena waxaa yaala ama aan idiin soo wadnaa muuqaalo kala duwan oo daawooyinka iyo arrimaha dabiiciga ilaahay dhirta noogu beeray faa-iidooyin kala duwan ay leeyihiin, iyo waxyaalo badan oo fudfudud oo guriga dhex dhooban oo aynu ka qadannahay cilmigooda, faa-iidana aan ka raadina meelaha kale iyo dukaamada, annagoo ay aada noogu dhow yihiin waxyaalahaas, si aan isku wada xasuusino faa-iidooyinkaas oo adinka idin khuseeya ayaa agteena ha hilmaamin channelkan daris inaad na noqotid. waxaan ugu talagalnay waa arrimaha noocaasa si wacyigeena kor ugu qaadno una bislaano, nasteexooyinka quruxda badan ee isqurxinta ku saabsanna aanu idin soo gudbino mar walba. faasaliinka haddaan idinkala wadaaga 2 qiso aniga iga soo martay iyo sida anigu aan ku aamino waxaa ka mid ah, oo labada aan ku daaweeyo xaqiiqatan bushimo dilaaca. iyo muddo alla igu imtixaamay bushimo inay dilaaci jireen, ay dhiigi jireen. markaasaan farmashiya markaa tagaa dhakhtarka wuxuu leeyahay dhiiggaada hoos u dhacaya, fitamiinka iska mudmuudsan waxba malaha. gaar ahaan waa jiri jira markaas, cid kale iima sheegin, ilaahay unbaa maalin iskaga kay aadiyey. faasaliin waa dareema faa-iidadeed, waxaay noqotay inaan la saaxiibo khalaas. maalinkaas ay ugu dambeysay wallahi. arrinta kale oo
arinta in la sheegana mudan saan ugu dhiirano waxa weeye yani meelaha qabowgaana isticmaalka markaan ku leeyahay waa saase hadda ka hor qabow xanuunka noocaasi qufaca keenay qofka qabowga gala arrin uu igu reebay baa jirtay oo dhakhaatiir badan iyo farmashiyaal badan intaa tagay daawo isiyaan kan cun nag habeenkii dambe wiina ii yaalla waan isticmaali jiray faasaliin ayaa waxaan niyadeeda kusoo dhacday niyow ma marsantay halka laabtay ahayd marka qufacaasi xataa marka qaarkood habeenkii ma seexan jirin waa marsaday habeenkii horta ugu horreeyaan ku dhabuuqay dugsi baan ka dareemay habeenkaas wallahi waa seexday subaxii khalaas markii ay ugu dambeysay maasha allah darteed baan inay isticmaalo labada qis aniga iga soo wajahay ana goob joog waa aniga ku faa'iiday ku intifaacay idinkuna ku intifaaca noloshiinana يعني كم ديالا بورصة قشو بيسك سارة جيب قشو ميل ديكو حد نمرسو كفايد إن شاء الله تعالى وهسنتين مقال كأننا هل كاسان كسو قارني قبل ديسا انت مقالة كلا ان استوحوين كيس قرحين تكو سابسا إيا نفتانا إنو ضريالو أنو كل مدون كوين كلا سوسعونا كان هل كاسان ينو بالله توفيق